waad qurux badan tahay marka aad dhoola cadeynaysid. Dhoola cadeyntu waa hadal wanaagsan oo aan codkiisa la maqlin. Dhoola cadeyntu waa luqad ay fahmayaan adduunka oo dhan. Dhoola cadeyntu waxay ku soo jiidaysaa qalbiyada si sahlan oo aan dhib lahayn. Maalinta ku soo martay adigoo aan dhoola cadeyn waa maalin aad khasaartay. Maalin ayaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu soo galay Caaisha oo ciyaaraysa. Markaas ayuu dhahay, waa maxay kuwani? Waxay dhahday, waa hablahayagii. Wuxuu yiri, muxuu yahay kan u dhaxeeyana? Waxay dhahday, waa faras. Wuxuu dhahay, waa maxay waxaan uu wato? Waxay ku dhahday, waa baalal. Markaas ayuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri, ma faras baa baalal leh? Waxay dhahday, miyaanad maqlin in fardihii Nabi Suleymaan ibn Daawud ay lahaayeen baalal? Markaas ayuu qoslay Nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa laga arkay goos dambeedkiisa. haweeney duq ah ayaa u timid Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ku dhahday, Nabiga Ilaahayow ii bari Allah si uu ii geliyo jannadiisa. Wuxuu dhahay Nabiga sallallahu alayhi wasallam, jannada ma galayaan islaamuhu? Markaas ay laabatay iyadoo oo murugaysan oo ooynaysa. Markaas ayaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam dhahay, ma galaysid adiga oo waayeel ah ee da'ada ayaa la yareynayaa. miyaadan akhrin aayadda Quraanka إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا أنغا دايرين هوينك جنة كان دغي كوا بكروين dhoola cadeyntu waxay leedahay saameyn cajiib ah waana muhiim qof kasta oo doonaya inuu kasbado jacaylka dadka in uu badiyo dhoola cadeynta mahma ay isticmaalaan dadka Jeenayska ayaa ah haddii aadan ku fiicnayn dhoola cadeynta ha furan dukaan. shirkadaha guuleysta ayaa qaar shuruudaha shaqaalooda ka dhiga in ay badiyaan dhoola cadeynta si ay u soo jiitaan una raali geliyaan macaamiishooda customer. wajiga furan ayaa la galay ee albaab furan lama galo. hadal wanaagsan ku hadal ama iska aamus. hadalka wanaagsan waa hadiyad midka ugu wanaagsan oo la siiyo. hadalka wanaagsan ee macaan qalbiga iyo nafta ayuu u fiican yahay. farxad iyo jacayl ayuuna ku beeraa. qulubtu isku soo dhaweeyaa wuxuuna meesha ka saaraa cuqdada, nacaybka, kala shakiga iyo waxa la midka ah. Alle wuxuu leeyahay dadka hadal wanaagsan ku dhaha kuma koobna muslimiinta kaliya ee dadka oo dhan, muslim iyo gaalba waxa la ina amray in aan ku hadalno hadal wanaagsan. si gaar ah hadalka macaan ee qalbiga ku beeraya wanaaga waxa u baahan waalidka iyo ilmihiisa, walaalka iyo walaalkiis, ninka iyo xaaskiisa, macalinka iyo ardaygiisa, mas'uulka iyo shaqaalihiisa. si guud in wanaag lagu wada hadlo laguna wada dhaqmo ayaa la doonayaa si loo noqdo bulsho iyo ummad dhinac walba ka wanaagsan. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, kelmadda wanaagsan waa sadaqo. hadal walba oo wanaagsan aad dadka kula hadashid waxaad ka helaysaa ajar. imise mar ayaa dadka maalintii ku dhahdaa hadallo wanaagsan oo qalbigooda soo jiidanayo. waxaa la ogaaday dadka hadallada macaan inay yihiin dadka loogu jecel yahay ee ugu saameynta badan. hadalka macaan wuxuu jilciyaa qulubta ka adag dhagaxa. hadalka xun wuxuu qariba qulubta ka khafiifsan suufka. hadalka wanaagsan waa hadalka dabacsan ee ixtiraam iyo qadarin wata ee aan diidmo iyo dhaawac u geysanayn qulubta dadka. waana hadal macaan oo ku sidata ammaan, duco iyo nasteexo iyo tusaaleynta hufan ee waxtarka leh.